xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay isla markaana ay soo qaban qaabiyeen dhalinyaro la magacbaxday golaha midnimada iyo rajasooyinta Soomaaliyeed kuwaas oo jeedkoodu yahay sidii ummada Soomaaliyeed ay u gaari lahayd nabad iyo horumar beddelkeedana looga tagi lahaa kala qaybsanaanta iyo qurunka qabyaalada ayaa waxay ka dhacday magaalada Bergen ee caasimada labaad ee wadanka Norway. xafladani oo dadkii ka hadlay aad ugu dheeraadeen awoodda midnimada ay leedahay caqabadihii dalka Soomaaliya 20 sano la soo dhaafay ayaa waxay ummadda Soomaaliyeed ku booriyeen sidii u noqon lahayn dad u istaaga sidii qarankii dib loogu dhisi lahaa. dadkii qodobadaha ka jeediyay hadalladooda waxaa ka mid ahaa Soomaalidaasi dhalinyarada meel walba ay joogaan in ay ku midoobaan ayagoo qabiil ka tagaya gobolaysi ka tagaya una taagay kaliya magaca Soomaaliyeed. qabiilku waa xaalada waxaan uu ka dhalanay inkastoo aan doonin maaragtay inaan ku dheeraado laakiin qabyaaladu iyo cudurka 21 sano ina burburisay. qabyaaladu waa mid halkaa ina keentay qaxootiga ina baday. qaxooti macnihiisu waxaa weeye dad miskiin ah, yani qaxooti macnihiisu in la ogaado muhiim ah. waa dad masaakiin ah oo u baahan cunto iyo waxay cunaan hooyay jiftaan. waa dad aan haysan gabaad dheeray ka dhigtaan. anaa qaxooti baan tahay yani hor u taalo dhalinyarada wax walba oo marka waqtiga xataa ay joogto qaldama mase maxaa la u baahan hor in laga qabto dadka rabo inay ku istaagaan oo hawshaas ay qabtaan waa dhalinyarada marka Soomaaliyeed maanta waxaa loo adeegsadaa qaar waxaa loo adeegsadaa dagaal, qaar waxaa loo adeegsadaa fikrado qaldan, qaar ayagiiya badda ku dhintay, qaar waa xabsiyaday ku jiraan. waa marka waxay ku dhacdaa marka dhibta ugu weyn ee ku dhacda waddankeena dadka qaybsaday ee dhex taalo waa hooyooyinkii ilmihii yaryaraa iyo dhalinyaradii soo kortay u baahneed markaas mustaqbalkii iyo u baahneed maxaa la dhahayay horumarka. marka xigto kale aan waxa sheegay waa laga sheegay labada wiil ay horeeyaan sheegeen halka waxaan ku daray waxa waa inaan ficil sameeyo qof walba oo Soomaali ficil sameyn kara qof walba naga mid ah wuxuu awoodaa inuu ilmihiisa tababaro waalidkiisa wax sheego walaalkiisa wax sheego ficil u sameeyo hadaa awood xataa Soomaaliya ku laabo dadka Soomaaliya aan caawino sidoo kale waxay dhalinyarada halkaas ay ku soo bandhigeen riwaayad aad iyo aad u qurux badan isla markaana ka turjumaysay qabyaalada qurunkeeda. waxaana riwaayadaasi ay ugu magacdareen qurunka qabyaalada iyo waxyeelada qoyska. riwaayadaasi oo ahay mid aad u soo jiidankii halkaasi ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa sida tan. Wow, كل شيء والله. هاي صح ده كل شيء واحد حتى بس كعربية وياي. حتى ما تقدر. يبي أنا لانكارا أنا مريها. وحافظ هذا المجرم سانا نقبل وردك يسوق أنفعي شيء سانا أنفعي سانا كده ربنا تكون ولا تنا وامد أديك أتكلم ماس ما فهمت وامد أقول شيء ماشي أنا sidoo kale waxaa goobtaasi ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee dhaantada loo yaqaan ku soo bandhigay caruur aad u daayar kuwaas oo muujinayay muhiimada ay leedahay in dhaqanka Soomaaliyeed lagu dheganaado. waxay taasi muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga ay weli qaar ka mid ah ay ku dhageen dhaqanka Soomaaliyeed. waxaana caawintaanay sida aad ku quruxda badan idin muuqda aad u soo qaban qaadiyay tababarkaana quruxda badan la soo siiyay Maama Maryan oo maameynta badan ka shaqeysa isdhexgalka iyo qaabka ummadda Soomaaliyeed ee ku nool magaaladaasi ay noqon lahaayeen kuwa qabyaalada ka saliimka ah. isku soo wada duubo xafladaha caynkan oo kale ah ayaa inta badan dhalinyarada waxay ku soo bandhigaan waxyaabaha ay isleeyihiin
ummada Soomaaliyeed waxay u tahay irid ay uga gudbi karaan dhibaatooyinkii caqabadaha dalka soo maray. Axmed Taajir, TV-ga caalamiga ee Somalisat, magaalada Bergen ee caasimada labaad ee wadanka Norway.